بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo bisha ah tobanka bisha 12-tobanaad sanadka 2023 caawa waxaan mudaa waa habeenkii balanteena ay ahayd barnaamijkii aan ka soo duubnay xildhibaan cumar shariif jeeg in aan idiin soo dayno dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beelaha banaadirga kasii gaar ahaan beelaha gibil cad iyo gibil madow. walaalayaal mar kasto waan idin sheegnaa barnaamijkan maxloo miidiyo waxaan idin keennaa barnaamij la dhahayo itus itaabsi, laakiin caawa waxaa sharaf weyn inuu ah yani barnaamijkan waxaa ku jira su-aalo iyo jawaab oo ay dhaxalgal u tahay fac ka fac beelaha gibil cad iyo gibil madow. yani arrimo fara badan ayuu ka hadlayaa xildhibaanka oona loo baahan sii degnaan in loo fahmo oona dhaxalgal ay u tahay caruurteena ama jiilka cusub mustaqbalkooda. walaalayaal midib u daahinayay horta ku soo dhawaada barnaamijkeena. adeer aad iyo aad umahadsan tahay in aan si fursad ah isku aragno anigoo soo booqday magaalada London carada Ingiriiska. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii ugu qaalisanaa ee aan rabay in aan meeshan ku arko. allahu naxariisto maam Faaduma iyo adeer Axmed Naaji Sacad iyo adiga oo macluw ah fanaaniintii qaranka ee Soomaaliyeed. allahu naxariisto eedadeedii adeerkayga waa geeriyooday, laakiin caruurtoodii ayaa la kulmay oo Faaduma Qaasin caruurtooda wax halkan igu soo dhaway iyo Axmed Naaji Sacad caruurtiisa oo aan qofna ka maqneen. adna hadda waa intii markii tobanaad iyo markii saddexaad waa intaan is arkayno. adeer macluw miidiyo macluw aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa wareysiga qaaska ah ee aragtid inaad bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Banaadir ba la wadaagtid oo soo dhaweyn adeer. walaal cumar waa runtaada, ilaahi ha u naxariisto walaasheeda Faaduma Qaasin Loole iyo al-ustaad Axmed Naaji Sacad maanta aniga ka nool. waa runtaada, saddexdeena waxaan ka mid nahay saddexda ay ku faanaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir qowmiyadaha ama degmooyinka ay ku nool yihiin, gaar ahaan degmada Shibis, degmada Shingaani iyo degmada Boondheere. kow tan lamaad waxaan kuu sheegaa walaalow, haddii labadaas qafood oo maanta adduunyada ay joogi lahaayeen in waxyaabaha dhacay aysan dhici lahayn, laakiin macna male adduunyada haddii la nool yahay wax kasto waa qadar allah waana dhacaa. waxaa ka mid a kow aan apologize kaa siinaayo. waxaad i tiri diblomaasi ahaan macloo adeerkayga eraboorka markaan kaa waayey waan ciishooday. runtaada waayo, waad og tahay markay dadkaad filanaysid iyo dadkaad ku faanaysid waa taqaanaa, iyo dadkii abaalka kuu galay waa taqaanaa. waa runtaada, laakiin aniga waxaan kuu sameeyey wax adiga aadan ogeyn dab kici lahay ayaan kaa damiyey. kow horta ka raali naqo habkii laguu soo dhaweeyey iyo habkii xafladaada ay u dhacday adigaba ogeyn, laakiin dagaal hoosaad ayaa laba beelood ka jirtay. annaga macloo miidiya wax ma qarino, markaatina waa keenaa markii nala warsado. kow waa nasiib dar maanta wiil aad waalid u tahay oona waalid kuu yahay oo soo dhaweyntaada qeyb weyn oo ka qaatay oona barnaamij kuu qabtay. barnaamijkaada ay ahayd bisha 26 in la dhigo
in lagu soo gebagabeeyo gabadha la dhaho naciima tahliil hadday xafladda imaanayso tiimka ku faanayay fanaaniinta tiimka ku faanayay kooxda tiimka ku faanayay bahabaada inay dhahaan gabadhaas ama annaga mid dacwadaas waxaa isoo gaarsiiyey fanaanka da-da yar wiilkayga xuseen carab aadna waalid u tahay waana la hadlay waxaan ku iri abti soomaalida ama reerka gobolka banaadir reer banaadir wax looma jiro reer banaadir waa qoys dadka ku nool gobolka banaadir waxay dhahaan nin deb haayo day mala dhaho xafladan ninkan waalida u tahay waaliduu u yahay iska aad indhahaaga ka fiirso sow u dhacaayana haddaan kuu sheegaa waa 4 qodob iguma sibir kaali ila dheer kaali oo la dheer awaalkaada maan gudi karnaa sidiina way u dhacday waad aragtay waadna aragteen in xildhibaankii lagu soo geliyey hees aflagaado ah oona beel lagu waday beel ayay ku socotay bedelkii soo bixi waayey 1 iyo maxaa la yidhi baratanaan ku jirnaa 2 iyo inay dhacdo aqoon daro dad soo bartay sida aroosyada ama shaashsaarka loo maamulo camal inay ku maamuleen aroos camalaa lagu soo geliyey madaxdii iyo waalidiintaadana koray kugu sugaayeen miiska waxyaabo fara badan anaga indhaan ka fiirsaynin taasna karaale ahaw hadday maanta ilaah u naxariistay ustaad axmed xaaji iyo maama faadumo qaasin iyo aniga aan joogi lahayn waxaan ma dhici lahayn waxaanna ma imaan lahayn laakiin duruufta aa keentay taas karaale ahaw hadda ku soo dhawaa boorta su-aasha koowaad london waxaa joogdaa 21 beri ma jiraa xafiis banaadir ama bb banaadir aado ama qoomiyad banaadir aado in lagu soo tusiyo booqosha aad ku tagday beelaha oo reer banaadir kulligooda aada la shirtay adeer aniga mar kastaba meel kastoo aan tegayo booqosho oo banaadiri ah ayaan u tagaa iyo soomaali weyn maadaama kursiga aan ku matala shacabka soomaaliyeed oo aan xildhibaan federaal ahay oo aanan ahayn keliya xildhibaan banaadire laakiin in kursiga waxaan ku matalaa banaadire midaan ah jaalidaha ma leeyihiin xafiisiyo ma soo aragta ku soo aragtay wallaahi jaalidan oo bb banaadir xafiis ana meel igu dhow ah oo joogo inaad walaalanayo halkaa igu soo dhaweeyo sharaf leh axmed la yiraahdo axmed busuri oo xafiis bb banaadir aan ku shirnay way jirtay oo ka wada shaqeyn meesha oo lagu dhex sameeyey laakiin in meeshaas meel ka weyn la ballaarin oo meel nafis ah xafiis weyn oo ummadda iskugu imaadaan waa jeclaan lahaa dadka magaalada ku matalo haddaan macluul la kulmo iyo adeeraday waa la kulmay banaadire sababtoo hadda meeshaan 4 odayaala ah sheekh muumin aa ila joogo haddaan sheekh muumin la kulmay anoo banaadiri oo dhan la kulmay la mid tahay saas inaa ogaatidaan rabaa teeda kale wixii oo aniga wixii gudahaan wax ka qaban karaa mehe idinka micnaha dibadda idinkaani laga rabaa idinkaa magaci banaadir matalaya inaa odayaashiin waa tihiin maclow magac weynna waa leedahay dadka banaadiriga isku keen adiga u noqo aabbo beeska u noqo saldhigi u noqo labadii isdagaalsan waqti xataa kugu qaadatay heshiisiya isugu keen anigana insha allah waa soo laaban doonaa waxaana dhici doonta insha allah inkastoo hadda aan u jeedin ummadda isagoo dagaalsan okay walaal cumar waxaan u mudaa waktigaaga 20 beri ku dhawaad in lagu dhumiyey habeen kasta in lagu soo dhafriyo subaxiina lagu jiifiyo 1 iyo aroosyo in lagu geeyo adneha ummadda soomaaliyeed adkaysalaantid sababtoo ah haddii maanta odayaal reer banaadir ama dhalinyar reer banaadir oo aada la shiri lehed waxaa noo caddaa lehed waa og tahay dadkan beelaha gibil cad
iyo gibil madow inay ku nool yihiin maanta maaha keliya whatsappka aysan leehayn telefishon aysan leehayn barnaamij masibaradaada adoo odayaasha aad la fadhiisid ama adoo dhalinyaro la fadhiisid ama adoo shir ku jirtid aa la soo gelin lahay laakiin karaali naqo dadka ku keene xataa ma ogo mas-uuliyaddaada iyo waxay kuu keeneen waa ku tusaa hebel waa keeni karaa laakiin hadday qiimahaada ogaa lahayn iyo qiimaha aad ugu fadhiisid ummadda soomaaliyeed waktigaada jeef iyo habeen kasto casho iyo baabaha ma lagu dhumi lahayn walaal cumar warkaaga waa war siyaasi ah laakiin anaga haddaan nahay dadka ku nool london ama yurub ama america ama canada waa ognahay in halkan london walaa odayaal banaadir walaa bb banaadir inay xafiis ku leheen laakiin waa ku khasban tahay nin siyaasiya tahay warkaaga waa war taariikh oo helayo marka ka soco taas ku soo dhawaaw su-aasha labaad waa mahadsan tahay walaal cumar waxaan umudaa adiga waxaa tahay ninka ka soo bilaabay banaadirnimada dhalinyaro waxaad ku aaday guddoomiyaha degmada xamarweyne oo xataa lagugu xiray adoo difaacayo dalkaaga dhul oo dowladda lahayd maanta waxaad ku gaartay ilaa xildhibaan waxaad tahay xildhibaanka keliya oo maanta haddii la dhaho waa la hadlaa oo xaqa aan ka gambanin marka dadka waxay isweydiinayaan inta london waxaa yimid 2 xildhibaan adigoo ah cumar shariif sheek iyo xildhibaankii la dhahayey shariif mustafa xafladaadi oo wanaagsaneed oo laguu sameeyey shariif mustafa maka muuqanin xafladiisane adiga maka muuqanin marka dad badan waxay isweydiinayaan war see waxa u jiraa dadkan hal meele hal doonay fulaane maxaa dhibkaan keenay maxay kula tahay wallahi adeer mustaf iyo aniga waa 2 xildhibaan haddana marna waalidkeyga ah marna saaxiibkeyga ah aniga asaga 24 hours wada hadalnaa wada xiriirnaa imaashaha intaan imaanayene aniga asaga 2 meeloo kala fogna waa kala degnay asaga xafladeeda horta waddanka maba ku sugneeno soomaaliya oo aaday aniga tiisi waa joogay laakiin sababaha oo aan markaas sababtoo ah aniga nin waxaan ahay marti ah magaalada aqoon badan uma lihi qaab loo kala socdo ma aqaan qofka markuu meel ku cusub yahayna reer baadiyo ka yahay xildhibaanada hore waxay ugu duwan yihiin xildhibaano isku xiran waaye oo aan marna wax xumaan ah aanan ka dhexeenin okay saaxiib cumar arrintan xildhibaanka labaad waa la soconaa eedeeda adiga maliid eedeeda waxaa iskale ninka maanta ku faanooyo anaa keeni anaa yeeli anaa ku jiro wuxuu sheeganayaa guddoomiyaha bb banaadir asaga naftiisa ma aadin xildhibaan mustafa xafladiisa markii la warsadayna wuxuu ku jawaabay xafladdaas waa xaflad beeleed kaygana waa kii qoomiyadda waktigiisa ayaan keeni doonaa codkaas haddii loo baahdo marka adiga magaalada marti aad ku tahay warkaagana mar kasto jawaabtaada waa jawaab siyaasi ah taasna waxay noo caddeynaysaa barnaamij dhowr mar aan ka hadli in reer banaadir ama beelaha gibil cad iyo gibil madow inay saas isku haystaan aadamow maxaa aragti kuu laaban in maanta beel gibil cad gooni xaflad loogu sameeyo beel gibil madowna gooni loogu sameeyo taasne meaan ooga baxay walaal cumar haddana ku soo dhawaaw su-aasha saddexaad cumar waa mahadsan tahay shalay iyo maanta idolaad waxaan wadaa inaan wada xiriireyni xamar arrintan maanta ka socoto oo la dhahayo ninkan wuxuu rabaa malaaqa qowmiyadda banaadir arrintaas maadaama adiga aad degmada xamarweyne ka soo jeedid see u aragtaa seena loo samey karaa maslaxa wallahi horta adeer dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaraa fiican
annaga niman siyaasiyiin ah oo xildhibaanaan nahay dhaqanka odayaala leh odayaal malaaqiyiinaa joogaan odayaal dhaqanaa joogaan suldaamana joogaan banadiri odayaal aad u badan ay leeyihiin odayaashii allayaa la rabaa inay ayaga wada fadhiistaan oo xaliyaan wixii ayaga ka soo bataan aan annaga soo faragashan karnaa maadaama ay dadkii hore awal waxay ahaayeen odayaal isku wada xiran hal nin ay doorteen ninkii ay doorteen sax waaye wuu ahaa mafahme ninkii wuu baxay dhowr iyo 10 sano maqnaa adeerkayaasna wuu soo laabtay hadda waxa waaye odayaasha hadda joogaan iyo asaga inay wada fadhiistaan uu dhaho heshiis cusub inay wada qortaan ay heshiis ku wada yihiin laakiin adoo ogtahay banaadire hadda qabaa'ilada soomaaliyeed sii kala baxbaxeenbo nin kastana qabiil waaye waxa waaye qofba qabiil uu meesha ku joogaa qabiilba qabiil waxaa rabaa marka in qabaa'ilada lasoo aruuriyo la mideeyo hal dalad loo sameeyo taasna shaqadeeda xildhibaanadana waa laga rabaa dhaqankana waa laga rabaa laakiin isdaqaqabsi ma dhacayo insha allah markaan dalka ku laabano waa arki doontaa dib u heshiisiin guud oo banaadire ee ayaga markaas cidday rabaan ama odaygii hore ha ku soo ceshtaan ama mid damba ha keensadaan go'aamadeeda waa la qaadan doonaa biidnillahi kariim walaal cumar su-aashaan waxaan ka sameeyey arrintan oo isku haystaan imaamka beesha shaanshiyo oo ku jiro waxaan ahay imaamka guud beelaha banaadiriga asagoo ka soo jeedo beelaha gibilcad iyo malaakh buubamuuda oo ka soo jeedo beelaha gibil madow oo asagana ku jiro malaakha beelaha banaadiriga aan ahay guud ahaan marka arrintan iyadoo barnaamij oo maqal iyo muuqaal oo aan ka duubnay oodii dhaqameedyo beelaha gibil madow iyo gibil cad jawaabteeda oo run ah waxaad heli doontiin insha allah maalinta khamiista habeenka jumcaha soo galaayo usbuuca soo socdo walaal cumar haddana ku soo dhawaaw su-aasha afaraad tan koowaad cumar waad la socotaa intaan adiga aad hadda xildhibaanka aad naqanin waa dowladdii farmaajo annagoo magac banaadir wadano markii doorashada la gaaray xildhibaanadii adig kaa horeeyey waxay isticmaali jireen ama reer banaadir yaa xildhibaankaas maxaas qaba karaa anaga maa meena la geeyey anaga maa sameena dad qaarkooda markii la geeyni waxay ku soo baxeen dad kuleejo dhiganaya camal markii la rabay in laga qaadane waxay la soo baxeen qaarkooda kutaab qur'aan qaarkooda gacantaa nagala dhuma jiri qaarkooda saasaa nala yeeli jiri marka adiga haddii 40 sano soo socoto one man one vote dhii waay oo lagu soo dhaqo 4.5 adigane markaa social haste ma waxaad leedahay aniga beeshaasaan ka soo jeedaa kursiga anaa leedahay mas waxaad leedahay wallahi ninkii tartamaayo ha yimaado hadduu iga qaatane farahan ka saaraa horta adeer waxaan kuu sheegaa kuraas banaadiri oo ay xor u tahay oo tartan galamaba jiraba kuraasta banaadiriga waxa waaye qabaa'ilada waaweyn ee dalka ku xisaabtamo haddaa u malaysaada inay banaadiri ayaga is dooran karaan isma doortaan markaas rijinka jiro ayaa xoog asaga wuxuu ku geystaa cid alle cid duu rabo asna markaas madaxweyne maba noqdoba sababta ummad la xoogaayo markay dhacdo qofkaas maba soo laabanayo aniga shalay waa noolaa waa cunaya waa caafimaad qabi waxaa laga yaabaa intaan inaan kasii qiim badnaa laakiin marna ma dhacayso banaadiri nin kastoo karti leh inuu issoo sharaxaan weli ani shacabka reer banaadir waxaan ku waanin lahaa haddee rabaa inay kuraastooda u madax banaanaadaan waa inay ayaga jooskooda ama nidaamkooda ay dhilaan laakiin hadda waxaan ku caddeynaa burburka 1991 si dagaalada ay u dhaceen ilaa maanta kursi la isku doorto si xalaala ma jira xataa aan noqono kuwa hadda annaga aan ka mid ah imaadeen waxa waaye musuqa badan musuqa dalkan waa ku badan yahay fasahaadana way ku badan tahay ilaahi subxaana watacaala sababaha uu waddanka u hagaajin waaye ama waddanka u toosi waaye waxaa waaye waxaa ku badan dulumka meel markuu dulumka ku badan yahayna ma hagaagayo marka ani waxaan aaminsanahay kuraasta marbo dadaa ku fadhiisanaya qof oo xaq u leh oo kasoo iibsaday mar horena waa dhaha haddana waa dhaha qof china kala imaada ama kasoo iibsada ama jabaan ama maraykan ma jira ama yurub kursigan maalintuu ilaahay kugu talagalo qofku ilaahay u calfo inuu ku fadhiisto waajib waaye waxaan u mudaa walaalayaal
waad maqasheen xildhibaanka marka waxaan rabaa kow inaan la hadlo dadka ku bootee jiri anagaa sameyni anagaa kaas sameyni anagaa kaas sameyni anagaa kaas sameyni kow marka sababtaan isku daalineyno maxay tahay xamar waa la socotiin odayaasheena saxan baasto aa ka adag xafiis ma qabno community ma qabno dad la isticmaalo oo hataa af soomaali aan qori karin ayaa maanta magaca banaadir sheeganayo yurubna waa la socotiin yurub ingiriiska ujeediin wow wax male holand qabiilaa u xiran america qabiilaa u xiran maxaa kuu soo heri canada reer bahaa dhan aa joogaan cumar maxaad ka maqasheen marka aabi banaadirgii la sheegayo aabi waxaa la sheegaya gibil cad aabi gibil madow annaga aabi maxaad maqasheen marka iyo waktiga idinku dhamaanen ani maanta wixii ka dambeeyo waxaan isku bedelaa nuuc kale ood arki doontiin kaasna meehaan oogu baxay okay cumar waxaanu mudaa shantiina ama lixda cusub oo beelaha banaadir xildhibaan ku ah 2 sano aa la marooya oo wax dhiman ama 2 sano maxaad qabateen ama maxaa qorshiina yahay inaad u qabataan dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho wiil iyo gabar ama jaamaca in loo diro ama shaqa in la geeyo maxaad la qulateen maxaadna qabanosiin maxaadna jexshiin wallaahi ani horta nin bulsho kasoo dhex baxayaan ahay shalay waxaan aaminsanahay in aan jeclahay in banaadir wax loo qabto haddii codkeyga uu gaaro ama videogan la duubaa wareegaya madaxweynaha maqla ama ra-iisul wasaare way ogyihiin heshiisyadii aan la galay inay ahaayeen inaan ani aan wax doon ahayn laakiin bulshadii waana aan kasoo dhex baxayo shalay aan ka dhex mudaaraaday in xilal la siiyo waxyaalahan ku balanay ahayd haddee waajibaadkaas dowladdana ma aysan kasoo bixin ayadoo markaasi fiirinayso in dagaal lagu jiro oo dagaal shabaab ah hadda dagaal shabaab waa soo dhamaaday waqtigii siyaasadda la keenay baarlamaanka la isla wada joogaa dadka reer banaadirigana wax waa loo qaban doonaa xildhibaanada hore waxay ugu duwan yihiin xildhibaano isku dhega nugul oo wax kala maqlaayo oo wax fahamsan oo isku mowqif hawaaye xildhibaano tafraaruq dhexdooda ka jira maaha biidnillahi kariim wixii qaldan waa toosinaynaa walaal cumar waa mahadsan tahay jawaabtaada waxa waaye oo aada noo sheegtay xildhibaanadii hore camamanihii wax waa qaban doonaa madaxweynehana wax waa u dirnay jawaabaan sugoonaa iyo dagaal shabaabaa lagu jiraa markii dagaalkii waxaan dhamaado insha allah maxuma laakiin warkiina ama u dhaqdaa warkii ra-iisul wasaarihii hore khayri caman ou dhihi jiri ani farmaajo asoo 3 bil u dhimana waxaa laga keenay anoo og adigana hadda waa kugu bilaabatay xildhibaan inta joogo oo ah xildhibaanka ugu da'weyn beelaha banaadir gaar ahaan gibil cad iyo gibil madow aadan is arkin aadanna is salaamin oone dhameyso laakiin jawaabta waa kaa sugeela taasna meehaan ugu baxay haddana kusoo dhawaaw su-aasha 6aad cumar waxaan rabaa su-aal oo adduunka dhan la isweydiiyo dalkeena wuxuu ku dhisan yahay 4.5 hadda haddii qolada 4ka ah mid xildhibaan laga xiro ama wax laga qaado ama dembi aan galo waxaan aragnaa tolkiisa ama gabalkiisa inay miiska soo fadhiisanayaan kow shanteena banaadiriga kuraasteena haddii la alla ilaaha makase oo nin xoog wixii loogu qaado odayaal ama madax oo xaniiga leh oo dacwo karo oo reer banaadir ma jiraan oo wax soo dhici karo wallaahi annaga nasiib xumaa nagu dhacday waxay tahay ninkeena markii wax laga haleeyo ninkeena looma gurmanayo laakiin 100 qofood oo asaga kursigiis rabto aad joogto oo aanan ninkaas asagaa ceedda ama la saaraa haddii laga gardaranya xataa asaa ceedda la saaraa laakiin haddii la helo odayaal dhaqan hadda adiga waxaa arkaysaa niman odayaashii dhaqanka malaqyada hadda ah oo hantidooda guryahooda la haystaa joogo waddanka guli la haystanimada lagama bixin dadkii la rabay inay ayaga isxureeyaan ayaga isku dhegdhegan banaadiri oo ayaga aanan heshiinin oo hal mowqif noqonin oo aanan hal meel iskugu imaanin oo aysan walaaltinimada iyo kalgaceylka isku muujin
ayagana maalkooda waa loo tashanayo waa la cunaa marka ninka walaalka ah waxaa la rabaa haddii xilka laga qaado inaad u gurman kartid waana ognahay inuu dulum badan ka jiro farkaligeedana fool ma dhaqdo dadkiina qurba joogta ah waxaan laga rabaa in contributionka dib u dhiska dadkiina idinkana kaalin aad ka qaadatiin ilaayo $5 kafeeya lagu cabaa £5 kafeeya lagu cabaa inaa aad bil kasto meel wax inaad iskugu aruurisaan un ciddii wax loo qaban karo maaha in qof calooshiisa la buuxiyo laakiin qof aqoon leh wadaad ah wax loo abuuri karaa shaqo waxaa la dhihi karaa ninkaa shaqaha loo abuuro kan shaqaha loo abuuro kuwan waxa lagu baro MCH aa loo baahan yahay hadda MCH-kana waana sii wadi doonaa dad badanna way ballan qaadeen waxaan u mudaa xildhibaanka inuu la hadli beelaha gibil cad iyo gibil madow inaysan dad lahayn oo haddii ama xildhibaan lasoo weeraro ama nin kasto intii aan difaaci lahayn inaan anaga dhabarka iska tooganeyno oo jegadaas aan la tartameyno macnihiisa waxa waaye jawaabta aboo kan yar iga celi kan weynaa iska celi laha macnihiisa waxa waaye dad jiro ma banihi waana runtiisa dad jiro inaanan ahayn waa ku mahadsan tahay walaal cumar haddana ku soo dhawaaw su-aasha 7 tan koowaad waxaan maqlay dhalinyaro badan oo reer banaadir xamar ay joogaan oo la rabo in lagu shaqaysto oo loo abaabulo inay furtaan xisbiya banaadir nin la arko oo hadhow labadii xisbi oo dowladda la sheegay midkooda inay la shaqeeyaan haddii taas dhacdo maxaa la qaban karaa maxaad qaban kartiin maxaana qaban karnaa kow ka jawaab mid xisbiyada horta annaga xisbiga soomaaliya xisbi ugu horey dadka furtay banaadirey ahaayeen xisbi hadda loo xisbiyaa la furaa diloona waxaan ku rajo dheernahay annaga xarunta xisbigaa oo nalaga haystaa ogtahay ka jawaab mid xisbiyada horta annaga xisbiga soomaaliya xisbi ugu horey dadka furtay banaadirey ahaayeen xisbi hadda loo xisbiyaa la furaa diloona waxaan ku rajo dheernahay annaga xarunta xisbigaa oo nalaga haystaa ogtahay xarunta xisbiga inay dowladda dib u soo celiso in oo biidnillaahi kariim maxaa la dhahayay xisbiyada dalka ka jiri doona inaysan laba xisbi keliya suurtagelaynin aan xisbiga la ballaariyo xoogaasi ee qof kasta oo iska dhex arko waatiin maclow magac weynna waa leedahay dadka banaadiriga isku keen adiga u noqo aabbo beeska u noqo saldhiga u noqo labadii isdagaalsan waqti xataa kugu qaadatay heshiisiya isugu keen walaal cumar ma xumo fikradaada maclow adaa oday ah adaa sidaa aniga qaf nool waa toosi karaa waxna waa bari karaa waxna wuu i bari karaa laakiin mayd qaf mayd ah wax ma bari kari aniga qof nolosha ku cusub wax ma beri kari qof jecel kaamarada in laga arko wax ma beri kari arrintan ma dhaweyn aan farigayga kala baxay markaan arkay dad magacooda da haddii la warsado aan kasi karin iska dhaaf siyaasi laakiin warkeyga waxaan kusoo gabagabeynaa waad maqasheen cumar sharif jeeg wuxuu idin yidhi kuraasta noocaasaan ku nimid wax aan nahayne ma leh marka waxaan idin sheegaa dadka youtubeyada ka soo hadlo ama aan u bixiy cayayaanka bulshada oona ogahay ay soo hadli doonaan iyo dadka london oo daaha gadaashiis ka soo hadlo iyo dadka jecel masaakiinta ama xildhibaanada inay soo lugooyaan waxaanu sheegaa aniga waxaa la dhahaa maxamed maxlo nuur nin waxaan ahay fanaan qaran soomaali ah oona ka soo jeedo gobolka banaadir gaar ahaan degmada shingaani kasii ahaan beelaha gibil cad si fiican ay maqla kelmaddan ilaa aan ka dhinto
maka tanaasulahay warne weligay ma qariyo abuukar amiin doctor raafi waxaa sidi ilaahay au naxariistee aadamo og maxaa aragti kuu laaban warqadan beesha gibil cad ay xildhibaankooda ku xasubeen akriso maxay ku qoran tahay kunta asharaaf cali nuur waa beelaha gibil cad haddana ugu soo dhawaaw beesha gibil madow maxay ku qoran tahay ururka b b banaadir okay aawi qowmiyaddii banaadir oo b b ka weyneed ko aawi guddoomiyaha b b banaadir u sheegayo xafladdii beelaha gibil cad maxaa loogu arki waayo marka waxaa way walaalkeeyo walaalayaalo waxaan idin sheegaa waxaan aqoon u lahayn aan faraha la galnay halaga xaaxaabiyo walaal cumar sheekh jaag waa mahadsan tahay ma jiraa fariin yar ummadda soomaaliyeed ama adduunka reer banaadir aad ujeedireed oona kusoo xiri leed barnaamijka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay qulubtiina isku fura ilaahay ka baqa dadkana ha loo gurmado oo abaaraha iyo maxaa la dhahay fatahaadaha ku dhacay ha loo gurmadaan leeyahay dhiigga ummadana hala ilaaliyo si aanan loo daadin marka adeer macluub khayr iyo caafimaad ay rajeenaa reer london oo u mahad celinaa soo dhaweynta iyo sharafta iyo karaamada ay sameeyeen warkaygana intaasaan oogu baxay tan labaad